tababara ay ka qayb qaadanayeen 40 xubnood oo ka kala socday bulshada noocyadeeda kala duwan ee deegaanka degmada Baki ayaa lagu qabtay hotelka Oslo ee magaalada Boorama. tababarkaasi oo lagaga hadlayay mashruuc wax lagaga qabanayo sidii dib u nooleyn loogu sameyn lahaa dhulka ku yaala deegaanada gobolka Awdal. waxaana barnaamijkaasi soo qaban qaabiyay hay'adda FAO waxaana fulinayay hay'adda Candlelight ee localka ah ee ka howlgasha Somaliland. waxaana lagu falanqeeyay sidii dhulka khayraadkiisa si midaysan loo isticmaali lahaa isla markaasina naqshadeyn loogu sameyn lahaa si loo badbaadiyo deegaanada kala duwan dhul daaqsimeedka. waxaana kulankaasi ka hadlay Hibo Maxamed Ismaan oo ka mid ahayd ka qaybgalayaasha iyo Maxamed Ismaaciil habane oo isna kamid ahaa ka qaybgalayaasha deegaanka degmada Baki waxayna sheegeen inay ka howlgali doonaan sidii loo badbaadin lahaa dhul daaqsimeedka kala duwan. tababar noo socday muddo 2 cisho tababarka waxay noo waday hay'adda Candlelight waxaana maalgelisay FAO. wax wanaagsan baan ka faa'iidnay insha Allah waxaynu ka rajaynaynaa markaynu ku noqono tuulooyinkii degmooyinkii magaalooyinkii aynu matalaynay faa'iidadeenu ka helay yaynaan halkaa ku kala tagin oo inaan halkaa kaga kicin aynu dib ugu celino bulshadiina sugaysay inaguna aynu wacyigelino qofkiiba wuxuu wacyigelin karaa 100 qof u gaarsiin karaa. ujeedada iyo muxuu ahaa barnaamijka ay waday muxuu Candlelight ee dadka la gaarsiinaya ama casharku ku saabsanaa ila fari Candlelight aad baad ugu mahadsantiin waan qaadanay marlii ka soo qaybgalayaashii seminaarka markaan nahay midna anaga ballan qaadi waxaanu ballan qaadi messenger baan nahay ama fariin qaadayaal afarta tuulo ee halkan muxuu ku joognaa afkooda ku hadlaya ee degmada Baki qof kasta oo naga mida wuxuu gaarsiin doonaa waxa aad nafarteen meelaha iyaga baan kula noqonanaa. arrimaha faraha badan ee deegaanka ku saabsan ee lagaga hadlay seminaarka isaga ah wuxuu ahaa muddo gaaban hase yeeshee cilmi aad u fara badan baa meesha laga faa'iideystay. sidoo kale waxaa halkaasi casharo ka bixinayay macallimiin ka socotay hay'adda Candlelight ee ka howlgasha deegaanada Somaliland ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa. waxaana casharada bixinayay Cabdi Aadan Maxamed Yuusuf iyo Cabdi Xakiin Maxamed oo ka socday hay'adda Candlelight ee tababarka bixinayay. waana kulankii ugu horeeyay ee noociisa ee ay ka qabato degmada Boorama hay'adda Candlelight. وعافي تي في قرن في Somaliland Boorama.